أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحذركم وأحذر نفسي عن مخالفة الجبار وعصيانه ولا ليال خطبتنا ما أنت واحد تابن دونتا سنة كعصبة إسلامك صوص عده بلان دونا ما بلان دونا بريتولة إن شاء الله سبت ذاكو بيجن سنة كاسة إنه تلمام دونا تاريخ كوبان بينه كتلمام دونا وعكرا إنه كورم دونا ما إنه دول استاج دونا سنة كي تجي محينه كسجوتين إنا سنة كصوص عدنا محينه كقابل إنا لبدا قضب ويس صارنا وإنه تلمام دونا إن شاء الله ولا ليال سيدا ويوكسون هاي بلا آدنكو وأول باعي مالمعني هبينذن إسويدارنا هي إجرام مرايا وأول باعي تاريخ كأستيستو أو كل صعوبة حلق الله مرايو يحلق لتاجن هاي بايادو وين بوقبا بلا آدمكو وايو هداني تاريخ تشرين وحورود عين لما حسوستين وحصوص عدنا لما شرين أو لمسي قومبيون أو لمسي قواميين oo lama sii qorsheeyeen taariikhdu waxay ku jirtaa waxyaabaha u muhiimsan ee nolosha bini'aadanka qayb weyn ka qaata day ballan tahay iyo hadday qorshe ay tahay iyo hadday dhacdooyin dhacay ay tahay oo lagu taariikhaynaayo walaalayaal waxaa jiri jirtay taariikhda ugu caansan waxay taariikhda hadda de taariikhda imaka laga dhigay caalamka laga dhigay wax kasta lagu suuq geeyo ee taariikhdan miilaadiga xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda ugu caansan bay ahayd dabeetana waxaa dhacday markii dowladihii islaamku ay ballaadheen ee ay caalamka qaybo badan oo ka mid ay qabsadeen weliba khaasatan dowladdii cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu khilaafada u hayey markii dowladdii islaamku ay ballaaratay ayaa waxaa batay maamuladii uu samaynayey ee saxaabada qaar ka mid ah uu magacaabayey ayaa farabatay iyo dhul fara badan oo kala duwan oo islaamku ka talinayo marka waxa aad u batay de maadaama dawladdu ay talinayso awaamir ay bixinayso in xafiiskii u sareeyay oo Umar uu gacanta ku hayo in waraaqa ka soo baxaan oo caalamka islaami intii kale goboladii kale muslimiintii xukumaysay saxaabadii xukumayay loo diro marka culimadu waxay tilmaamaan sababta keentay taariikhda artu in la bilaabo waayo qofkii ugu horeeyay bilaabay taariikhda islaamka hijriga أستيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها وعلماء سوغوريان أما يتلمامان صوابها يكور رمانا كاري هذا نمتكم إذا سوق هذا الله واحد عليه حلق عمر رضي الله عنه يا صحابي قيمة بن أبو موسى الأشعري أيا وحو أدري وراقب أدري بمتنا واحد سوى توابي صحابي قيمة بدن عمر بقى وحو soo qoray wuxuu yiri waxa noo timaada kutub xagaaga ka socota waraaqaha soo qortay oo dhankaaga ka yimaada ayaana soo gaara waraaqahaasi waxa ay yiraahdaa taariikha male doortay soo baxeen iyo xilliga ay soo baxeen lama garanayo taariikh male ibaarinta dib ugu laaba Umar oo taariikh u samay waxaana xilliyada jiray maadaama xadaarado kala duwan la dhaxgalay oo muslimiinta caalam farabadan ay qabsadeen xadaaradii la gala kulmay wadamadii gaalada waxa kamid ah waraaqaha ay qoraan way taariikhaysnaayeen oo way mudaysnaayeen dabeetana Umar radiyallahu anhu wuxuu sameeyay muslimiintii ag joogto oo dhan iskugu yeedhay hal doorkeedii dabeetana wuxuu arintaas jirtay muslimiintu taariikh ka maari maayaan waa in taariikh loo sameeyaa xagaynu ka bilowna taariikhda sanadkaanu ka bilowna dhacdooyinka waaweyn ee muslimiinta soo maray dhacdadeedan ku calaamadina dabeetana saxaabada mid meel buu ku dhuftay aqwaasha ugu caansan ee soo qaadan doona qayb kamid ah waxay yiraahdeen xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo saaray ee nabiga laga dhigay laga bilaabo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo saaray waa in nabigu 23 sano ayuu nabi ahaa 13 uu Maka joogay 10 uu Madiina joogay marka laga soo bilaabay yiraahdeen waayo xaq ayaa yimid adduunyada baadilkii tirtiray aakhirkii saxaabada qaarna waxay yiraahdeen laga bilaabay hijrada laga bilaabo Umar wuxuu doortay qowlka oranaya hijrada laga bilaabo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam soo hijrooday xilliga lagu calaamadiyo
عمر رضي الله عنه وحكو دورته وحيري الهجرة فرقت بين الحق والباطل هجرة وحي كلا صارتي حقي يا باطل كي أي كلا صارتي مركي النبي عليه الصلاة والسلام هجرودي مركي ورد عفايا يا مسلمين بلد الإسلام موجرين من الله سو هجرودو ومسلمين كتريسو وأحكام الإسلام كاي كيرجش ما يجرين بعد كده رميسا أحكام تنفر الكيل هاي نصاري صلاة مركا لقربو انت كراد النبي عليه الصلاة والسلام waxay ku soo degeen isagoo magaalada Madiina jooga inta uu Makka joogay aayaadka Quraanka ku soo degay iimaanka ayuu badayeen waxay saddex arrimood u badayeen Ilaahay way ka waramayaan ya aakhirada waxa aakhirada dhici doona aakhira ku maqan iyo risaalada nabiga عليه الصلاة والسلام loo soo dhiibay saddexda arrimood awood saaran iimaaniyaadkay dhisi jireen aayadaha ku soo degay Makka أحكامته هي تشريع وحي يميلي سوى لما تدريجي يحمر على الصورة على ورد الجنين كل بقى وحسود دقيين مركي النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أسوق جوري وهي بلد الإسلام بعد أهله ما الإسلام كله قفليه مركي حقي يا بعض الكلا كلام بحي سياسو تلمام رضي الله عنه سياسو كدورته مركا واحد بل سويدي هل كان لك بالعبية بشيء كون نقول إسلام صحابة رضوان الله عليهم qayba meel bay ku dhufatay saxaabada qayba kamid ah waxay yiraahdeen waa in laga bilaabo Ramadaan waayo bilaha waa bisha ugu qiimaha badan way Ramadaan baa laga bilaabayaa saasay dhaheen Umar radiyallahu anhu taana wuxuu doortay in laga dhigo bisha Muharram waayo maxay yeelay buu acmaasha amal weyn baa la sameeynaya waa amal acmaasha ugu waaweyn ayaa la sameeyay dadku xajkii bay soo gabagabeeyeen marka xajka laga soo gabagabeeyo la soo dhameeyo kadib hal laga bilaabo bisha ka dambaysa Muharram hal laga bilaabo tiba la isla qaatay marka sidaas ay ku sugnaatay taariikhdan islaamka in hijriyada laga soo bilaabo bisha koobaadna laga dhigo bisha Muharram ee biri bilaamaysa walaalayaal muhiimada taariikhda laga lahaa ujeedada koobaad laga lahaa waxay muslimiintu inay yeeshaan taariikh gooniya يسمد قورية يعلامد قورية ومرها كلا كجس وعيهين وإن يشاد ويمد الله الله تاسيه بلا عربيات ضيعة مركو ظهربا وعربت هو استعمال تشرين لكن تاريخ ما يلحين بلا هو استعمال سي الصومالي ويقول هايين بلا هاي مقع يقول هاي بلا إسلامكم سي مقعيدا يقول هايين يقول بلا مقعيدا هو استعمال تشرين وبيه طبعا كابلود لكن تاريخ وتاريخ أيضا ما يلحين تشرين marka saasay ku bilaamatay taariikhda islaamka saasay ku bilaamatay walaalayaal taariikhda qiimaha badan leh ee ku beegan xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam soo hijrooday laga bilaabay waa waqtigii ugu qiimaha badnaa ayaa laga bilaabay waa waqtigii xaq iyo baadilku kala soocmay waa taariikh aad u qiimo badan waa taariikh u baahan in la barto oo laga warhayo oo ubadka lagu tarbiyeeyo bal waxa laga yaabaa dadkeena badankeedu inay garan waayaanba ama bisha Ramadaan kaliya inay ka yaqaanay bisha Dilxijja la yiraahdo bilaha kale aan waxba ka garanaynin inta bilood ay 12 bilood ay ka kooban tahay magacyada ay leeyihiin iyo sida u kala horeeyaan waxa laga yaabaa inay dadku badankoodu garanaynin laakiin bilaha miilaadiga hadii loo tiriyo in magacyada tiriyaan baa laga yaabaa magacyada ay gartaan waa daayirteen marka dhallinyaradu waa lagu sameeyay taariikhdeeni baa la bedelay شيء كستو هذا لا تاريخينيو waxa islaam hadii waxa lagu taariikheynaya taariikhda miilaadiga xilligii hore lama aqoonin ba kutubta caalam islaami taala hadaad baadho sheeka soo dhintay iyo waaqaca ka soo dhacday iyo dhacdo ka soo dhacday waxay ku caansan tahay xilligii ay dhacdo xilligii taariikhda islaamka ay caan ku tahay xilliga miilaadiga dhacdo lama garanayo waa taariikhda miilaadigu ma xambaarsana xadaarad islaam ma xambaarsana xadaarada reer galbeed bay xambaarsan tahay marka waxyaabaha keenay in waxa xataa iska daa inta laga yimid muxuu ahaa taariikhii islaamka ayaa luqada carabiga afkii islaamku lahaa ayaa lagu soo duulay kiiba laga tagay marka waxa noo haray oo hadda aanu ku faani karnaa meesha ma taalo muhiimadu ma aha in gaala laga daydo oo markuu sanadku dhamaado siday u dabaaldegaan loo dabaaldega ma waa in taariikhna la barto laga sheekeeyo taariikhna wax ku taariikhaysano dib wax la kala qaadin wax lagu kala qaato lagu ballamo mushaar lagu qaybsado waxna gebiga hadii aanu ballamayna iyo hadii wax sameynayna taariikhda waa laga guuray si cad baa looga guuray
waana intan dee isbedelay adduunku isbedelay ee ku dhaqankii shareecada islaamka ee islaamnimadiiba laga durkay laga fogaaday ana qofku xadaaradda wuxuu u arkaa taariikhda gaalada inuu u wareegayo xadaaradda u arkaa waa taariikh ma xambaarsanay ma mabda aad aaminsan tahay ma xambaarsana walaalayaal taariikhdan qiimaha badan leh hadday noqoto sagootin iyo soo dhoweynba sanadkaa tegey iyo sanadkayna soo galayba waxaynu ku sagootinayno kuna soo dhoweynayno dhowr qodob oo kooban baynu ka soo qaadanayna qodobka ugu horeeya waxa weeyaan tadakuru hijrati nabiyi sal allahu alayhi wasallam inaynu xasuusanaynu ka sheekaysanno nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii nebigu siduu u hijrooday dhibaatada uu ka maray qorshaha uu maray waddada uu qaaday bacadka iyo kulaylka uu maray masaafada uu socday inta leekeed wixii dhibaato ka soo gaaray intii nebiga la raadinayey wixii qarash iyo fangarayn nebiga lagu bixiyey soo hadda ma maqashaan maraykan baa dul dhigay intaa ninkaa soo sheega madaxiisa keena ama soo sheega intaasoo malyan buu leeyahy 5 malyan baa dul yaala ama 10 malyan nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligaa lacag baa hadda dolarka ugu qaalisan ugu cadcad soo maa wixii ugu qaalisanaa ee carabi fahmaysa luqaday fahmayeen bay quraysh kula hadleen boqol halaadoo geela cascas baan idin siinaynaa bay yidhahdeen haddaan nebiga iyo cidda la socota soo sheegtaan taariikhda dib ha loo raaco marka waxay koowaadaynu ku qaabilayna sanadkii tegey kan hadda bilaamayna aan ku sagootinayno kan hadda bilaamayna aan ku qaabilayna waxa weeyaan inaynu waxa weeyaan taariikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam baranno qodobka labaad waxa weeyaan muxaasabatu nafsi calaa maa faat inaynu qaliya bug qaadanno oo nafteena aynu dib u xisaabinno sanad baa dhammaaday farxad maaha waa dhaqanka dadka aan lahayn nolosha aan qorshe ka lahayn gaalku waxba yaraato nolosha qorshe ka leeyahay ma jirto wuxuu ku fikirayaa siduu u noolaan lahaa wuu iska noolyahay haddaan weydiisa maxaad u nooshay garan maayo wuxuu nooli markaa isagu wuxuu ku farxayaa geeri u dhawaaday buu ku farxayaa inuu geeri u dhawaaday waxaan macnaa intaasoo sanaan jiray oo geeri baad u dhawaatay soon sii socday qarka saaray geeridii wax lagu farxaa sanad dhan oo tago cumrigaagii ka mid oo tegey oo wuxuu ku tegay baadan garanayn adoon ilaahay baa aqoonin uu kaa tegey ama cibaadadaadubaa yaray ama dembigaaga iyo cibaadada dembigaaga uu fara badnaa wax lagu farxa maaha waxaa macnaa loo baahan yahay inaynu qalin iyo waraaq qaadanno meel gooniyaa loo baxo la xisaabtamo ninka meheran leh sanadna kama baaqato xisaab xidhkiisa kama baaqdo adigu sanad kasta waa inaad yeelataa xisaab xidh xisaab xidhkaagu wuxuu noqonayaa maalin leh habeen kaste marka sii seexanayso qalin iyo waraaqdaada isdul saarnaado haddana ha noqdo toddobaad kasta xisaabi bil leh sanad leh xisaab noocaasaa yeelo waayo qofka xisaabtamaa noloshiisa horumar buu ka sameeya qodobka cumar ba waxaa laga hayay intaanan ka bixin xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu waar naftiina sii xisaabiya intaan idinka laydin xisaabin marka ilaahay aad hor tagto waa lagu xisaabinaya wazinuu anfusakum qabla an tuuzanuu intaan miisaanka laydin saarin idinku isisii miisaama miisaanka qaado kafada isa saar intaan lagu miisaamin ومقالد aad ka cajiibka ahayd Umar laga soo guuriyay radiyallahu anhu qodobka saddexaad ee ku soo dhaweynayna taariikhda soo socota sanadka soo socdaan ku soo dhaweynayno sanadkii tagayna ku soo gootirina waxa weeyaan ta'allumu taariikh almuslimiin muslimiinta taariikhooda inay baranno khaasatan taariikhda ay muslimiintu wax ku tirsan jireen ee xadaarada iyo thaqaafada muslimiinta xabaarsan ee taariikhda hijriyada inaynu baranno sanadkii misaad baa la maray waxa laga yaabaa in badan hadaynu weydiino inay garan waayaanba sanadkii inta la marayo laakiin kan gaalay hadaan weydiin la soo boodaan waxa la maray 2022 ka la maray ka islaamkana inta la maray ay garan waayaan waa arin dhacay karta wey kamana shakisni waayo taariikhda waynu laabnay sida shariicada islaamka qayb badan oo kamid ah aynu laabnay wixii qoyska ku saabsan wixii kala dhan ee la isku dhaqaayay farahaynu ka qaadnay deetana taasu meel la mid tahay kuwa faraha laga qaado bay la mid tahay walaalayaal ilaahay wuxuu markuu ka waramay bilaha agtiisa biluhu waa imis ilaahay baa noo tilmaamay inna ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra ilaahay wuxuu leeyahay biluhu waa 12 bilood intaasaa kitaabka ilaahay ku qoran yawma khalaqa samaawaati wal ard maalinka ilaahay ciriya dhul abuuray laga soo bilaabo ilaa imika taariikhu waa 12 ka bilood ilaahay markuu sii tilmaamay wuxuu minha 4 xurum 4 bilood xurma la jira waa 3 bilood oo israaca ana waa bilqacda bilxijja muharram iyo rajab 4 bilood way xurmay leeyihiin buu nabigu calayhi ayuu ilaahay leeyahay
xurmay leeyihiin waa bilaha xurmada leh ee carabtuna si gooni iyadoo islaamku aanu soo gaarin si gooni ay xurmayn jireen walaalayaal qodobka afraad ee sanadka soo socda aynu ku soo dhaweynayna waxa weeye at-takhdiid lil-aam al-jadid sanadka soo socda inaynu qorshe samaysano qofku inuu qorshe samaysto noloshiisa inuu jadwal u sameeyo ee aanu iska noolaan noloshaadu waa inay meel ku tiirsan tahay waxaad qabanayso waqtiga kaa baxaya wuxuu kaaga baxaayo wixii adduunyo kaa gelaya wixii cibaado kaa gelaya waxaad aakhiro hormarsanayso waxaad adduunyada ku hagaajisanayso waqtigaagu waa inuu qorshaysan yahay dhibaatadayna haysataa waxa weeyaan gaalkii nugu dhaamada waa gaalkii ilaahay aan garanaynin ee shariicada islaamka aan garanaynin ee islaamka wanaagga aan garanaynin ee waqti aan lagu boorinin wuxuu garanayaa qiimaha waqtigiisu leey inaguna waqtigeeni waxa qaaday waa gaaraan Soomaalida fadhi ku dir baa qaaday diyada haddaad martay arki maysid meel islaam qaaxiya loo fadhiyo dadku waa dad shaqo taga oo shaqaysanaya adduunyo ku foogan ama waa dad aakhirada iyo adduunyada isku wata weeyaan laakiin waqtigeeni ma qaaxiya qaba maxaynu ka faa'iidnay waxaalaali waxaynu ka faa'iidnay ma jirto waa fadhi ku diririyo ree hebel iyo kaas halka maray ana waa sheeko waxa yaraatay inoo taraysa inagana aan anfacaynin ubadkeena aan anfacaynin dalkeena aan anfacaynin baynu ku haynaa wax faa'iido leh inoo soo saara ma jirto maanta waynu baahannahay wax ka saaqaliyo inuu taaganahay xooggeena waynu ka oomanahay xooggeeni waynu ka oomanahay Soomaalidu waxay oran jireen awr ka weynaad aragtay aakhira xooggiisa la tusaya saasaynu ka dhiganahay wali xooggeeni maynu dareemin hadduu yahay kii maskaxeed iyo kii awoodeedba wali maynaan dareemin kamaynaan faa'iideysan waayo waqtigeeni maan qorshaysnaynba qof hadduu waqtigiisa qorsheeyo uu ka faa'iideysanaya xooggiisa iyo muruqiisa iyo maankiisa ilaahay siiyey si ilaahay jecel yahay ilaahay uu rabo ayuu uga faa'iideysanaya qodobka shanaad aan ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan waa siyaamu yawmi Ashura sanadkan cusub bilaamay bishan u horeysa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay afdalu siyaami ba'da ramadaan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl wuxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado bisha ramadaan soomka la soomo soomka ugu fadliga badan ee la soomaa waa soomida la soomayo bishan muharram bishan ilaahay leeyahay muharram ilaado soomka la soomo weey salaad faralo la tukado marka laga yimaado salaada ku xigta ugu fadliga badanna waa salaatu al-layl waa salaada habeenkii la tukanayo ilaahay ku amaanay muslimiinta كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكاوي ولا ليال مالك عاشوراء ومالك التمناد بشن عدى بلنا يسمى مالك التمنادوي صوم كلا صومه فلقي سواء انتبوا لقي نبي عليه الصلاة والسلام وحليه صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها صومك لصوم يبش مالك عاشوراء لصوم إلهي وحن كرجينيا وإلهي كفر لنا ينبي وكرجينيا وعدب وحقيقة سنة كي كوريي وحي دم دعي إلهي وكو ضعفه مركا أجريك كتيرا وحوي إنا صومتا مالكا سنة كاتجي وحي دم كادعي ودن ayuu ilaahay kaaga tirtiraya wixii dambi ka dhacay oo dhan ayuu ilaahay kaaga tirtiraya marka maalinka soomkiisu qiimahaas u leey waxaan isku dardaarmaynaa maalinkaas inaanu inaseegin maalinka tobnaad ee bisha muharram soomkeedu inaanu inaga dayacmin taas ayaa waxa weeyaan isku dhiiri gelinaynaa walaalayaal soomka maalinka Ashura la soomo goormu bilaamay وصوم كهر يا صحابة يا مسلمين تلقوا واجبية وياه علماء بدن كوضة قبان علماء بدن كمان أي قبان وهي حديث نبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لقوري آيات المام آية نبي عليه الصلاة والسلام بسيارته كوي بعدين كهر هنا صوم كمان كل صوم إياه واحد علي بيانة مدينة يمدي وسنة كهر يا هجرة بكم مدينة ويمدي أيها هو أركي وسنة كي لبعض سنة كي كوما كلاجي ما هذا كي لبعض بلا شديسي أيام نبوا حاركي صحابة ما كي نحجلان يهودي على يهودا ما شكون نوري صحابة النبي جوا حاركي يهودي يسوع معي
markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yahuudi ayuu weydiiyey maalinkan maxay u soomaan yahuudi waxay ku jawaabeen waa maalinkii ilaahay nebi muuse badbaadiyey ee uu fircawn ka badbaadiyey fircawnna ilaahay uu halaagay sidaa daraaddeed baan u soomayna nebigu wuxuu yidhi annagaa ka mudan haddaynu muslimiin nahay nebi muuse annagaa ka mudan way de shareecadiisa way bedeleenoo way dayaceen hadday tahay nebi muuse annagaa ka mudan buu yidhi isaguna wuu soomay saxaabadiisina uu amray inay soomaan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fariin buu dirayaayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haadaa yowmun kataba allahu calaykum siyaamahu maalinkan ilaahay baa idinku waajibiyey faman asbaxa saa'iman falyutima sawmahu qofkii soomanow soomkaaga dhammaystiro waman asbaxa minkum mufdiran qofkii aan soominowna falyumsik baqiyata yowmihi maalinka inta u harsan yaanu waxba cunine afka ha iska haysto saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ku yidhi marka xadiidka culimo badan waxay ka qaateen inuu markii hore waajib ahaa kadib la nasakhay oo ramadaan soomkeeda lagu nasakhay walaalayaal waxaan intaan ku soo gabagabaynaya waan raacinayaa maalinkan tobnaadee la soomaayo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan uu waday soomkiisa ayaa waxaa timiday qaacidada ah yahuudda iyo kiristaankaba in la khilaafo maadaama yahuuddina ay soomayaan muslimiintina ay soomayaan waxa muhima inay ku kala duwanaadaan soomkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna alyowma taasic wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaan sanadka soo socda aan noolaado oo aan si nolol ilaahay igu gaarsiiyo maalinka sagaalaad baan soomi doonaa ee ka horeeya maalinka tobnaad si yahuudda looga duwanaado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu geeriyooday ilaahay baa ka hor ka oofsaday uu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa markaa maxaa laga qaatay culimadu waxay ka qaateen maalinka tobnaad keligii inaan la soomine ama maalin laga horreysiyo waliba waa sida fiican ee ajriga badan maalinkaa sagaalaad in laga horreysiiyo ama maalin laga dambaysiiyo maalinka 11aad in la soomo saasaa fiican oo wanaagsan keligii haddii la soomana laa ba'sa bihi wax dhibaataa kuma jiro laakiin si yahuudda loo khilaafo maalin ka horeeya oo waliba waa sida wanaagsana fiican ama maalin ka dambeeya in la soomo ayaa fiican oo aan keligii la soomin si aan yahuudda loo waafiqin alaa sallu wasallimu cala nabiy sal slam amrin liqowlihi tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima